السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaasha qiimaha mudan ee hawada nagala socdo daawadayaal halkani waa xarunta Home Cable TV ee wadanka Sweden. waxa aanu daawadayaal maanta ama caawa halkan idinku soo gudbinayna waraysi aanu la yeelan doono mudane Cabdiwahaab Ismaaciil Sancawl oo isagu ah aqoon-yahan reer Somaliland isla markaana inta badan sidaan mar hore idin sheegay aanu ka wareysano arrimaha dhaqaalaha maadaama uu yahay nin dhaqaaleyahana oo isagu ku diyaariyay wadanka Sweden jaamacadda master degree ee dhaqaalaha. Cabdiwahaab maanta waxa aanu ka wareysan doonaa arrimo ku saabsan dekada Berbera iyo heshiiska saddex geesoodka ay wada saxadeen Ethiopia iyo Imaaraadka DP World shirkadda la yiraahdo iyo waliba xukuumadda Somaliland. Marka su'aalaha ugu muhiimsan ee maanta aanu u soo booqnay ama aanu doonayno Cabdiwahaab inaan ka wareysano faa'iidada ama faa'iidada ay u leedahay maalgashiga noocan oo kala imika dekada Berbera muhiimadda ay u leedahay geeska Afrika iyo waliba waxa uu ka tari karo maalgashiga noocan oo kala iyo arrimo badan oo ku saabsan Somaliland iyo heshiiskan nooc ahaa iyo waliba hadii alla ku rooyahay waxyaabaha loo baahnaa in la sameeyo ama waxyaabaha loo baahan yahay imikadan yarba in la sameeyo anigoon ku dheeraanaynin su'aaluhuna su'aalo cilmiyeysan oo aad u muhiim ah oo isagu uu inooga jawaabi doono isaga ayaan ku soo dhaweynaya Cabdiwahaab soo dhaw Cabdiwahaab waxaan doonayaa ku weydiiyo waa maxay muhiimadda ay u leedahay Berbera ganacsiga gobolka iyo adduunka si maxay imika ay muhiim u noqotay kadib 27 sanadood oo Somaliland jirtay waa maxay sababta imika muhiim ka dhigtay dekada Berbera waa su'aal weyn bismillaahir rahmaanir rahiim horta Berbera waxa ku taala marinka badda cas waana marin aad u muhiim ah xagga ganacsiga iyo isku socodka xagga maraakiibta waxaanay ku dhacdaa sidaan soo sheegnay Berberi badda cas qaybteeda koonfureed marka imika adduunku sidoo hore uu iskaga soo adduunku sidoo hore uu iska dhaxgal badan yahay sidii adduunku ahaan jiray 20 sano ka hor maanta uu ka bedelay marka isku xidhnaantii ganacsiga adduunku kor buu kacay iyadoo taasoo ay saameyn weyn ku yeelatay dawladda China ama wadankan China oo 20 sano u korayay si qeyr caadi ah u korayay taasoo marka waxa uu saameyn ku yeeshay ganacsiga adduunka marka adduunkuna sidii hore uu ganacsiga iyo badacad dhaafiskuna aad iyo aad ugu xoogay marka dhaqaalihii wadamada la yiraahdo wadamada soo koray developing countries-ka dhaqaalahoodu kor buu kacay sababtoo ah China kor u kacan dhaqaalaha China ayaa saameyn togan ayuu ku yeeshay wadamadaas soo koray wadamada developing countries-ka waliba Africa oo kale markaas global demand-ka ama dhaqaalaha adduunka China wuxuu kordhiyay 50% ee kor u qaaday marka wadamadanna waxay u dhoofiyaan commodity-ga wax la yiraahdo ama mineralka ha noqoto ama magaranaysaa importiska warshadaha ha noqoto ama alaab ceylin ha noqoto alaabtaas China markuu u baahday wadamadaas oo aad iyo aad uga soo iibsada marka marinkaas wuxuu noqday marin sidii ka horeysay barigii hore ka mashquul badan saameyn badan ayuu yeeshay marka sida marka taa loo eego taas waxay dhalisay in adduunyadii maanta ay magaranaysaa ilgaara ku hayso marinkaas waa marin muhiim ah wuxuu isku xidhaa Mediterranean-ka ama Europe iyo Asia isku xidhaa iyo Africa isku xidhaa markaas sidaas awgeed uu muhiim u noqday ayaa siyaasadii adduunkuna waa isbedeshay markii hore siyaasadaha adduunka waxay ahaan jirtay ama sida world order-ku u yaalo 9-8 waxay ahayn bipolar waxa la laba quwadood oo baratamaya adduunkana dhaqaalaha ayaa inta badan ayaa wax kasta oo siyaasadda dhaqaalaha ka dambeeya ama baratan kasta marka 9-aadkii adduunka waxa soo daashatay speedku is dhimay waxa la unipolar oo Mareykanku ba awood qula noqday maanta joogii adduunku is bedelay iyo geopolitical marka waxa noqday multipolar marka waxa noqotay dad quwado far badan baa soo baxay sida Mareykanka oo kale waa Ruushka oo kale isna soo baxay Europe iyo the West-ka iyo Ruushka waxa kale soo biiray China India Iran Turkey kuwaas awoodo ma garanaysaa aan la dheelsan karin noqday
markaa berberi sidaas awgeed waxa ay ka bedelaysaa saameynta geopolitical calculuska isbedelka iyo saameynta siyaasadeed berberi muhiim bay markaa u noqotay waayahay cabdiwahaabow dee imika waxaan ognahay in DP World oo imaaraadka iyo weliba dowladda Ethiopia ay yidhaahdeen maalgelin baan ku sameynaynaa dekada berbera marka waa maxay sababta imika keentay in DP World iyo Ethiopia ay u daneeyaan Somaliland iyadoo Somaliland 28 sanadood imika jirtay oo aanay mar qura arrintaas aanay soo eegin sababta imika ay maalgashiga noocan oo kale ay u daneeyaan ama ay u daneeyeen waa maxay se maxay tahay ujeedada ay Somaliland ka leedahay maalgelinta okay waa su'aalasan waxaan u kala qaadaynaa saddex su'aalood oo isa saaran weeye imaaraadka iyo Ethiopia iyo Somaliland ta imaaraadkan ku horeeyna horta marka hore imaaraadka ganacsigiisu wuxuu ku base gareysay service economy wax la yiraahdo yacni bariga hore wuxuu ahaan jiray petrolka ayuu dhaqaalihiisu ku xidhnaa marka dhaqaalihiisu ilaa iyo 90aadka dhamaadkiisii way ka bedeleen marka wuxuu ku xidhay servicekaas waxa kamid ah dekadaha iyo airportada iyo financial centerka marka dhaqaalihiisa halbowlaha waxa uu ahaa saddexda aan soo sheegay marka dekada يعني dekada ugu weyn Jabal al-Ali baa la yiraahdaa iyo Mina Rash iyo Miklo Rashidiya la yiraahdo marka dekadaas waxay ahayd waa mega port waa dekad weyn waxay u serve karaysaa ama ilaa iyo Asia iyo waxa isku xidha iyo Galafka iyo Afrika isku xidhi jirtay markaas dekada imaaraadka lafteeda culeysyo badan baa soo fuulay oo adduunku sidii hore uu ka furfuray yahay dhaqaale kor buu kacay yani wadamadan la yiraahdo south trade ayaa bariga hore waxa la oran jiray weska waxa la north trade ganacsigu wuxuu ka dhaxayn jiray wadamada ma garanaysaa ee waaweyn ee developed countries ka ama de weska u badan laakiin south ganacsiga baa jira Africa iyo Asia isku xidha markaas orderkaas bariga adduunku sida ahayd ama 9-adii 2000 horaanteedii Dubai waxay ahayd dekad weyn oo dadka ma garanaysaa ay u adeegta wadamo far badan iyo companiyo far badan marka Jabal al-Ali imika waxa jooga 5,000 oo shirkadood ayay u adeegtaa wax ka socda 220 dal marka waxa soo food saaray dekadaas Jabal al-Ali ama Dubai dawladdaas waxa soo food saaray shirkad dekada la jaara la dhisay oo first oo ka muhiimsan ayaa la dhisay wadamo badan oo isticmaali jireen ayaa dekada lafteeda isticmaali jireen baa ka leexdo oo iyaga laftooda dekada samaystay waxa kamid ah Qatar oo kale Hamad Port oo kale oo iyaduna dekada ultra modern la yiraahdo dekad casriya oo multi purpose oo mega port ay samaysteen oo 2 milyan oo tan qaadaysa sanadkii marka waxa ugu badan gadal waxay ka dhoofin jirtay Jabal al-Ali waxay kala soo degi jirtay saddex meelood oo meel importkadi exportkadi dib ugu dhoofin jirtay marka dekadaasna dhawaan baa la furay waxa kale oo iyaduna xiisale oo iyaduna China ayaa wuxuu yimi gobolkan la yiraahdo Balochistan ku yaala Pakistan koonfurteeda marka halka wuxuu ka dhisayaa dekad iyaduna mega port oo ka weyn ta Dubai Jabal al-Ali ka weyn buu ka furaya oo gobol magaalada la yiraahdo Gawadar marka Gawadar waxay ku taala gacanka Khaliijka ama Persian Gulfka la yiraahdo Oman bay xagan ka soo xigtaa marinka ugu biisisan adduunka la yiraahdo Hormuz la yiraahdo Iran ku agteeda waxa halkaasi ku taala waa meel istiraatiiji waa deep sea port baa la yiraahdaa marka waa meel Dubayna ugu dhow waana gateway-ga isku xidha South and Central Asia waxa weeye population-ka 40% adduunka halkaas u degay marinkaana waxa mara petrolka ama oilka adduunka 60% baa mara maalintii in ku dhow 20 milyan oo barmiil oo shidaal mara marka dekadaas markii alaabtaas oo inta badan Dubai bay ka yimaado laga rari jiray marka China ayaa wuxuu ka sameeyay dekad weyn ayuu ka sameeyay taas imaaraadka warwar far badan ayay gelisay waxaanay imaaraadka way ugu dhowdahay si faasa alaabta looga rar karaa South immigrants Asia iyo bartamaha Asia waxay ku tagaysaa si jaban bay u tagaysaa China laftiisa ayaa wuxuu doonay inuu ganacsigiisa fudaydiyo uu soo gaaro koonfurta Asia fog marka relocation buu ku sameeyay wax soo saarkiisa iyo warshadiisa oo dhan wuxuu keenay gobol Xinjiang la yiraahdo oo ku yaala galbeedka China oo borderka xagan ka saaran meeshan la yiraahdo Pakistan ama gobolkan Balochistan ka saaran marka warshadihi oo dhan buu halka keenay
marka alaabtii China Shanghai laga soo qaadayay 1500 oo kilomitir bay jiraan iyo Singshan marka masaafadii China wuxuu meesha ka saaray 1500 oo kilomitir buu ka saaray marka Shenzhen iyo Guadarna way isku dhow yihiin marka halkaas uu alaabtiisa ka soo raray halkaas uu adduunka saa uga faafinaya dekadaas culays weyn waxay saartay Imaaraadkana aad iyo aad uga calooday marka waxa dhacay dagaal ayaa dhacay aamusan ama dagaal qabooba ka socda Hormuz area-daas ama Bahr al-Arab la yiraahdo oo Imaaraadka iyo Pakistan oo dhinaca Imaaraadka iyo Iran oo dhinaca iyo Qatar iyo Pakistan iyo China dhinaca ta kale iyaduna xiisaha leh Iran oo isticmaali jirtay dekada Dubai wadanka labaad ee wax ka soo dega ama wax ka dhoofiyo iyadana waxay dekada Gawaadir ku yaala marinka Hormuz ku yaala iyadana meel 100 kilomitir 100 mayl ka xigta xagga waqooyi iyaduna dekad weyn oo multi-purpose ka dhisanaysa markaas waxa yaraaday halka attractiveness-kii ama competitive-kii dekada Dubai ee Jabal al-Ali ayaa yaraaday marka Imaaraadka frustration baa soo wajahay soo food saaray marka waxa kale oo iyadana halisa oo iyadana baqaha ku kalifay inuu Imaaraadku berberay maado China ayaa ayuu imika bardhaweyd wuxuu dib u bilaabay dariiqii la oran jiray xariirta Silk Road Maritime Silk Road oo berigii hore ka shaqeyn jiray qarnigii labaad ilaa qarnigii 15aad marin uu ahaa ganacsi uu la lahaa wuxuu ka soo bilaabmayaa China ka soo bilaabmaya wuxuu soo maraya Indonesia wuxuu soo maraya subcontinentalkii la oran jiray Hindiya iyo Pakistan buu soo maraya wuxuu kaga soo dhacay halka Oman Soomaaliya maraya badda cas buu soo maraya ama Djibouti ku beegan iyo berberiye area-daas wuxuu ku socdaa Kenya ku socdaa wuxuu ku tagay down to Africa marka isagoo doonaya initiative-ka One Belt Initiative baa la yiraahdaa waa dhulka iyo badda marka badda waa mid taariikhi oo qarniyo hore uu China isticmaali jiray taana uu soo nooleeyay marka hadii ay taasu dhacdo oo magaranaysaa uu China uu Silk Road Maritime Road-ka uu soo maro marka waxa iyaduna hubaala inay berberi marka iyaduna muhiim noqonayso uu China uu qabsanayo uma iimanayo marka Dubai Jabal al-Ali waxay galaysaa halis marka Dubai qasab bay ku noqotay inay berbera soo qaataan marka motivation-ka keenay berbera Dubai keenay ma aha mid altruistic oo magaranaysaa deeqsinimo iyo mid bini'aadanimo ma aha waa mid political ka dambeeyo iyadoo halisaas soo wajahay sababtoo ah dekada Jabal al-Ali hadii dhaqdhaqaaqeedu uu yaraado macnaheedu waxa weeye shirkadihii baa dib u guuraya waxay saameynaysaa suuqii commercial-kii ee suuqii financial center-kii bay saameynaysaa oo imika hoos u sii socda waxay saameynaysaa Imaaraat air industry-ga bay saameynaysaa oo iyadoo imika la hanto oo la dawladda kabta markaas Imaaraadka waxay u tahay survival inuu berbere imaado marka kuma iman jacayl dadka Soomaaliland jecel yahay dantiisa ayaa keentay marka waxaanay national priority baa marka Abduhabow halka hadii aan su'aal ka weydiiyo Imaaraadka ama Dubai maadaama waxaan oo mushaakilaad ay soo wajaheen oo dekado badan la samaysteen China iyo Iran iyo waliba Qatar marka Imaaraadku maadaama iyaga shaqadoodii yaraatay oo dekadooda shaqadii ay yaraysay ujeedada marka ay imanayaan berberama waxa weeye inay ka xanibaan oo ay ku hor istaagaan sidii aanu China u iman lahayn mise waxa doonayaan in ganacsigoodii qaar kamid ah u soo wareejiyaan berbero kale okay sal fiican horta waa run labadaba way ahayd marka hore waxay u muuqatay markii hore sanadkii hore heshiisyada dhacayeen waxay u muuqatay carbonation inay magaranaysaa meeshaas aanay magaranaysaa aanay cid kale iman oo especially China aanu iman waxa kale iyaduna muhiim ah dekadahan bariga dhexe ku yaala bariga Afrika waxa dekadaha waaweyn baa laga develop gareynaya sida Kenya Lamu mid la yiraahdo la sameynaya Tanzania iyaduna waxay sameynaysaa dekad weyn waxa ku xeeran the greater East Africa East and Horn of Africa waxa ku yaala waxa weeye waa 400 oo milyan oo magaranaysaa qowmiyada lixdala oo bilaabada marka badahaas halkaas dadka looga adeega marka dekadaha tartan baa ayaa jira marka labada dekadood Imaaraadka laftoodina culays bay ku keenayaan dekadoodii waxa kale iyaduna muhiim ah Port Sudan oo ku taala badda cas ku taala oo iyaduna Turkiga uu qaatay marka waa sax markii hore waxa intention-ku waxa loo macnaysan karayay inuu sii carbonto laakiin arrintu waxay isbedeshay degdeg keentay markii Djibouti laga soo eriyay DP World
arrin serious bay ka noqotay oo qasab bay ku noqotay markaa inay Somaliland yimaadaan laakiinse doodda dadka badankoodu ay qabaan ay yiraahdaan waxa timi Dubai ama waxa u timi Imaaraadku inay Berbera ay u adeegaan 100 milyan Etoobiyaanka bay xiiseynayeen taas ma aha ma garanaysaa way jaban tahay waayo iyagu 20 sano 10 sano muddo 20 sano ku dhawaada dekada Djibouti la yiraahdo doora leh ay laga quudinayay Ethiopia marka halkaas ay uga shaqeynaysi marka laba meelood laba dekadood ay haystaan tartanka ma dhaxaysiin karaan waxay ahayd dekadanu inay ma garanaysaa dekad yaro inay meesh ka furan ay marka dama Carboon oo dhigtaan tan oo muuqatay laakiin shirkadu isbedeshay waayahay intaan ku weydiinin aragtidaada ku saabsan heshiiskan saddex geesoodka waxaan doonayaan ku weydiiyo arinta Ethiopia ayaa waayahay arinta Ethiopia ayaa weli ku jirta marka Ethiopia iyada lafteedu waxa weeye Ethiopia iyadu interest gaar ah leedahay dambeeyaduna leedahay taabid lag ba keentay Berbera iyadana Ethiopia waxa weeye waxa weeye waa empire ama waa dal taariikh 200 sano dowlad Ethiopia waxay leedahay aspirations ama hamid bay leedahay inay gobolkan la yiraahdo Horn of Africa ama East Africa in iyadu ay magaranaysa u talisay ku amar ku taaglayso ee dominate garayso markaas qorshaheeduna waxa weeye in aanay dawlad ka daba hadalo weyn inaanay jirin marka Ethiopia waxay isku darsatay waxyaabihii ay ku noqonayay regional hegemon wax la yiraahdo ama awood gobol oo kale inay ku noqonaysay shuruudihii oo dhan way buuxinaysaa waxa weeye wadanku waa inuu population badan uu leeyahay talabaad waxa weeye wadanku waa inuu military magaranaysa capabilities aad u sareeya dhaqaalihiisuna waa inuu sareeya marka Ethiopia dad far badan way leedahay oo 100 milyan in ka badan 100 milyan ku dhawaad dhaqaalaheedu waxa weeye marka wuxuu koraa 10% in ku dhow buu koraa wadamada dhaqaalaha ugu koriska badan adduunka weeye mid labaad waana military-ga inuu xoog badan tahay laakiin say warwarka qura ee haya aan ka nuuxsanahayn waxa weeye waxa uu dekad la'aanta marka waxay 95% ama 97% in ku dhow waxay ku xiran tahay ay dependent ku tahay Djibouti marka arintaas dependency-gu ama ku xirnaantaas frustration badan buu ku keenay Ethiopia oo strategically security-gooda ku xirnay in wadan sidaas ah oo doonay inuu noqdo local hierarchy-ga xagga sare ka ah inuu meel qura uu ku xirnaado marka taa lafteedu tiimaanka ku hayeen weeye marka 10 sano ugu dambeeyay annaahno 15 sano ugu dambeeyay waxay doonayeen iyagu siday ay arrinkaas u mareen lahaayeen iyadana waxa soo dedejisay arrinta kale ee Ethiopia iyadana meesha keentay waxa weeye Eritrea oo col yihiin ayaa waxa keentay Dubai baa timi casab bay siisay marka contract bay casab la gashay marka Ethiopia arrinkaas aad iyo aad uga warwartay marka Ethiopia waxa isku dayday geed gaanbo way u fushay in ay ka saarto Imaaraadka Eritrea waayo Ethiopia ma doonayso waxay doonaysaa Eritrea in ay isolated ahaato waayo hadii kale economic political significance Ethiopia lumaya hadii Eritrea ay furfurnaato oo adduunka dhan isku yimaado markaas waxay ku qasabtay dawladda Ethiopia wafti baa tagay wasiirro ku jiraan ayaa Imaaraadka tagay 2015 October waxay ilaahdeen Berbera annaga idin kritikaleena kala soo degno wax kasta marka dekada Berbera imaada oo maalgashada ma garateen in kala soo bax casab way ku guuleysteen in casab ka soo saaraan marka Ethiopia lafteeda survival bay u tahay in dekada Berbera imaadaan jacayl kale iyo jaarnimo kale may keenin Eritrea kala soo ordisay mid labaad Imaaraadka laftiisa isna warwarka ku keenay inuu Berbera yimaadaan soo dhaafnay Iran baa iyaduna timi 2000 horaanteedii Eritrea timi markaas dhaqdhaqaaqaas dekad yar bay ka samaystay marka Imaaraadkuna wuxuu aad iyo aad uga warwaray iyaduna dhaqdhaqaaqaas badda cas ee ku soo faafayso Iran iyaduna awood magaranaysa aan la dheersan karin oo meesha timi iyaduna taas lafteeda waxyaabaha keenay bay kamid marka Ethiopia iyo Imaaraadkuba waxay u yimaadeen dekada Berbera inay magaranaysa waxay ahayd badbaadadooda ahayd magaranaysa si kale loo makin heshiiska ay Dubai gashay ay Somaliland la gashayna iyo Ethiopia ba waxa dabada ka waday heshiis siyaasi buu oo arrin siyaasad baa dabada ka waday heshiiska la galeen laakiin Somaliland waxay ku guul dareysatay inay fahanto geopolitical dynamics ka isbedelaya inay akhrisato ay ku guul dareysatay oo waxay ku gashay hawshaas si magaranaysa ay aan habaysnayn si hoose u gashay waayo waxaan ka fahmaynaa natiijada ka soo baxday iyo heshiisyadan la qarinayo
ayaan ka fahmayna markaas iyo inaanay gorgortan aanay gelin iyo de intay qaadatay baa laga garan karaa marka iyadu Somaliland waa overall picture may arkahayn ama sawirka guud may arkayn for example oo kale kaynta qofna Somaliland dhirtii arkaysi dadkan kalena kaynta ay arkayeen marka aad marka dhirta qofka kale markuu kaynta arkayo wuxuu fahmayaa faa'iidada leedahay biyaha leedahay dabeelaha say u celiso dhirta fiican ku taala yani daaqa hoose ku yaala xayawaan ku nool yani saas oo kale Somaliland ayuu kuwaas labadaas picture ay kala haystay markaas Somaliland details yar iyo sta ku noqotay kuwa kale waxay arkayaan sawirka guud laakiin nasiib darro Somaliland way ku guuldareysatay inay fahanto waayo wax ka badan bay helayd haddii sidaas loola shaqeyn loo fahmi lahaa oo de waxay ka muuqataa natiijada waayahay su'aashaas si faahfaahsan baan ku weydiin doonaa ku saabsan Somaliland iyo waxyaabaha ay u baahneed inay iyagu ay qabsadaan laakiin su'aashan doonaykoodi waxa weeye Djibouti Ethiopia muddo dheer oo 20 sano soo sheegtay bay la lahayd ama ka badan ba xiriir ganacsi wax kala soo degi jirtay iminka hadii dib u wareeg ka soo wareegtay Djibouti oo ay barbar timid arrinta macnaheedu wuxuu noqonayaa in Ethiopia ay soo gabagabeynayso ganacsigii uga soo degayay Djibouti oo soo wareegayso barbara macaankaasa wallahi niyo horta heshiiskan iyo wixii la gaaray iyo dawladdu waxay sheegtay horta heshiisku horta waa mysterious cid ogma jirto waa la qarinaya marka de macluumaad far badan iyo xog far badan lagama hayo laakiinse gorgortanka way soo gali kartaa waa su'aal muhiim ah waayo hadii Ethiopia ay 19% ba qaadanayso in shuruuda lagu xiro weeye inay Djibouti ka soo wareegto laakiin Djibouti inay ka soo wareegto muddadan Djibouti kama soo wareegi karto dekada in badan sanada way soconaysaa mid labaad dekada laguma sheegin inay leedahay facilities storage shidaalka iyo oil laga soo qaaday waa Ethiopia shidaal badan bay la soo degtaa iyo oil iyo gas diyaaradaha kale marka facilities kaas war kama hayno heshiisku lama garan karo waxa meesha la keenayo marka de xog fadal badan ma jirto laakiin inagu intan ablaynayna analyze garanayna waxa weeye waxyaabaha imika soo baxayo way Cabdihabow sidoo u aragtaa heshiiska Djibouti iyo Ethiopia ay la gashay Somaliland maxayse hayd ama habooneed inay sameeyaan Somaliland inta aanay heshiiskan galin horta de waa sidaan soo sheego heshiisku horta de warba de sidoo horta lama hayo cid xogtiisa og ma jirto iyaguna de may soo bandhigin marka laakiin sidee waxyaabaha inoo soo baxaya marka de mabaadiida guud ka agno la leeyahay Somaliland waxay qaadanaysaa 30% qoladan kalena waxay qaadanaysaa 70% marka Somaliland minor stake bay ku leedahay dekada marka su'aalaha la isweydiinayo waxa kamid ah sidee loo maamulaya markaas mar hore waxay yiraahdeen special purpose entity vehicle baa la sameynaya yani shirkad labadoo dhinac matasha oo magaranaysa ayaa la sameynaya ama board oo kale leh oo Dubai ay leedahay Somaliland ay leedahay la sameynaya marka ma garanayna taa in la sameynayo Somaliland lacagteedan ku soo hagaagtay yaa ka bixinaya taa ma garan waxyaabahan cadeyn bay kamid tahay waa tan kulba de isbedelaysa waxyaabaha muuqdo kale waxa kamid ah iminka principleski ay barigii soo dhigtay ha memorandum of understanding waa principles waa tiirarka laftiisa mid baa jabay oo waxa ku jira tiirarka labada contracting parties-ka waxa weeye Somaliland iyo Dubai ma garato DP World marka taa lafteeda way jabtay oo mid saddexaad baa la soo galiyay marka wixii kolba in xirma la soo deynaya laakiinse waxay ahayd in magaranaysa Somaliland marka hore sidaan soo sheegnay Ethiopia maadaama DP World iyo Ethiopia ba heshiiskooda ay ka dambeysay siyaasad waxay ahayd inay siyaasad Somaliland ka dambaysa ahayd waxay Somaliland inay strategy ay samaysto la balbara maxay strategy no marka strategy la sameeyo in team la sameeyaa bay ahayd teamkaasu inay policy dialogue sameeyaan bay ahayd oo ay eegaan yani ay maxaa saameynta ku yeelanaysa dhaqaalaha saameynta ku yeelanaysa geeska saameynta ku yeelanaysa military han saameynta security ku yeelanayso waxaas oo dhan la analyze garay policy dialogue inta la sameeyo oo magaranaysa dad khubara oo magaranaysa aqoon-yahano loo saaro marka hadana negotiation road map la sameeyo marka negotiation road map kaas wuxuu sheegayaa yani sidoo gorgortami karto maxaad ku gorgortamaysaa marka horta marka arrimaha noocan waxa weeye very serious business way waa heshiisyo masiiriya waxa la dhigalaynaysan waa DP World waa company gigantic ah oo magaranaysa professional ah
oo ma garanaysaa lacag badan haysta oo dekado badan maamula oo wadamo far badan oo iska baaba'a heshiisyo khiyaamo midhan la gala intaa xisaabta lagu darsadaa bay ahayd balaas marka loo geeyay iyo ujeedada nimanka inoo keentay markaas waxay ahayd in sidaas oo kale loola garnaqsado ma garanaysaa iyadoo waxaasoo dhan la eegay oo xataa benchmarking lagu sameeyey dekadahan ay maamulayso oo kale heshiisyada ay qaadatay heshiisyada wadamada inoo dhow oo kale Ethiopia Djibouti oo kale heshiisyo badan oo kale benchmarking lagu sameeyo lala eegabay ahayd waxay ahayd oo kale in valuation method la sameeyo berbero kale maxaa lagu evaluate gareeyay markii leeyihiin 30% ayaan Soomaaliland qaadatay berbero Soomaaliland maxay ku qiimeysay qiimaha taagta maxay tahay dekadu oo kale يعني هي هدي وضد على المر لها سيد الله مر لها يعني هي وحن دم يصبحان يعني هي وحيابها النتيجة outcome كان صباحي يقلفت ذلك تشيلسيين لمبر ميريان هشيسكا حتى هدي ده تعال مر لها يقولون ده وضد كانوا يحبوا يسووا يقولون يقولون حق الغالي في عم بحتى لفت آخرته على قادم لها ما قرأت markaas arintaasu way ka muuqataa inaan sidaas loo gelin aan sheegayo way dhici kartaa in loo galay ma garanaysaa horta dad baa dadtagay negotiation oo maqli jiray in dad kulba loo yeelan jiray diyaaradu bixi jireen laakiinse hadii si wanaagsan sidaa sheegay loo dhuuxay yani natiijada noocaas ah damay soo baxdeen xataa dadkii ba qancin kar leh iyaga iska daayo markaas arintaas waxaan qabaa waxay ahayd heshiis waxay ahayd fursad Soomaaliland soo martay oo qaaliya oo dadweydan isbedelaysa لكن سوى دلك وجوهما أبد Soomaaliland قشي أيوها لكن تلفت هذا ساس أي شرته هذا Soomaaliland سياسة دي عليس أرنكنا وده كده وياش لكن ليش واحد وياهم ما هم حي دبي إن اعتماد ما هو فعلا chance في عم بيهايد من كذا سيد تاي chance يضو سداسة أي chance في عم تيو حلا أنتي أجدانتها لكن ليش واحد وياه qiimaha hadii lama qaadan waa laga badin lahaa talujeeda waa sidaas Somaliland may fahmin baadada arrimaha siyaasadeed caalamka waxa uu gashay isbedelay ka dhacay iyo waliba baahida weyn ee imika Somaliland iyo dekada berbera imika ay u qabeen Dubai iyo Ethiopia oo Somaliland si ka jilicsan sidii la doonay bay u gashay absolutely marka eegto ma garanaysaa waxyaabahan la isku madhaafsay dadkii xataa ay ku jahwareersan yihiin iyaga laftooda ay kala hadlayaan way mar leeyihiin Dubai afayeenka madaxweynaha mar maqolo waramay wuxuu yiri Dubai DP World ayaa 14% ka kiibsay Ethiopia wasiirka khaarijiguna wuxuu yiri 14 DP World ba kiibsay shanna waxa ka iibiyay Somaliland ba kiibsay markaas iyo heshiisyadana kolba gidaar madow laga kolba meel loo yeedhanayo wuxuu laga saxeexanayo يعني هي waxyaabaha soo dhan ma ay soo baxeen hadii si miisaan loo galay waxana loo galay si ma garanaysaa isdhaxyaaca si degdeg ah si aan nidaamsanayn si ma garanaysaa waxa loo galay aan hagaagsanin way abdulhabow su'aal kale oo ku xigtaan ku dalan laakiin waxaan ka horeysinaya imika waxa laga hadlayaa Ethiopia alaab wararaya maxay ahayday 100 milyan oo Ethiopia baa in isticmaalaya oo dekedeena isticmaalaya dadkii reer Somaliland xoolay dhoofin jireen xoolahoodii iyo hantidoodii ay dhoofin jireen DP World iyo Ethiopia markii meeshii yimaadaan iyaga maxaa iska bedelaya macashuuri baa lagu xulinayaa miyaa loo oranayaa dadka waa dadkii dekadii waddanka lahaayee iyaga discount ha loo sameeyo intii hore cashuurtii ha laga naasilo culays intee leeg baa soo fuulaya ma fudeed bay la kulmi doonaan mise way ku cuslaanaysaa horta sida sheegeen dekada waxa weeye waa dekad wax la sameeyo container terminal baa la sameeyo DPC magaranaysaa de Gulder marka waa 400 mitir markaas waa qaybta containerada laga handal gareeyo markaas aan fahmay tan kale waa qaybteedii xolihii dadkii bagaashku ka dhoofaya waxaana maamulaya kulay ma garanayno DP World baa maamulaysa laga yaabaa ama sidaan sheegayno shirkadii bariga sheegayeen ay wada maamulayaan wax ka bedeleen laakiin arintaas uu fudayd bay keenaysaa xulaysa ku keenayso way si fiicnaanaysa dekadu in fact runtii oo ay dekad cusub la sameeynaya marka containerada laga handal gareeyo marka wax culays wax ma garanaysaa culays ma jiro wax waa faa'iido mooyee waxaana qabanaya dekadu sidoo hore way ka sii efficient sanahaan saade maamul ma garanaysaa khibrad la qabanayo company weyn baa qabanaya marka aad buu fududaanaysaa wax dhibaatii dadka horta cashuur ma jirto yani cashuurta customka iyo sidii bay ahaanayaan laakiin safe chargeski ama fee-ga qaadi jirtay ayuun baa la qaadaya tium DP World iyo xagaas maraysa waayahay imika
waxaa ku jira heshiiska in dibord ay sameynayso freezone iyo weliba waxay kaloo ay sameynaysay dhisme dekedeed oo freezone marka dekeda freezone-ka maxay qabanaysaa marka ugu horeysa dekeda aan ka horeyno dekeda horta waxa weeye waa deked waxa la yiraahdo multi purpose terminal container ay weeye marka waxa weeye waa meel weyn marka wax keenaysa qalabkii gantry cranes-kii bay keenaysaa reach talker-kii bay keenaysaa qalab fiican bay keenaysaa marka containerada ayaa laga rarayaa laguna soo dejinaya marka waxay qabanaysaa functionkaasay qabanaysaa in wixii lasoo magaranaysaa ay alaabtan inay ka rogaan wixii dhoofayaan inay saaraan waxa kaloo iyaduna ay qabanaysaa dee wajiyo badan bay ay dekadu leedahay laga yaabo badeecadihii kale iyo xoolihiina inuu jiro midda kale iyaduna muhiimka iyaduna ay qabanaysaa waxa weeye transit shipka maraakiibta ayaa ku kala wareejin waxay noqonaysaa meel dekadu xarun containerada la dhigo oo magaranaysaa wadamada looga sii gudbiyo oo shirkadaha dhigana shirkadaha qaar ayaa wadamada fog ka imaanayo kale ay ku wada wadamada fog ee kale Afrika oo kale ama kuwa Asia fog ku wada oo kale ee Afrika laga qaado kale ayay sii dhiganayaan marka lagu sii kala wareejinay containerada ayaa lagu sii kala wareejinay oo iyadana wax laga qaaday charges service fiican laga qaaday midda kale iyaduna ay qaban karto ay qabanayso iyaduna wax weeye maraakiibtii fuel siinaysa shidaal ayaa laga qaadanaya dekeda marka dekadu shaqooyin badan bay qabanaysaa marinkaana wax ka dhigaysaa marin ma garanaysaa waxaana soo jiidanaysaa maraakiib fara badan inay ku salaaxato mid shidaalka qaada mid container lagu sii ballamiyay ka sii qaada mid dhoof kale ka sii qaada marka halkaas waxa weeye shaqo far badan ay sameynaysaa dekadu xaqana way camraysaa free zone-ka waxa weeye free zone-ku waxa weeye waa mandaqad dekada u dhow ama badda u dhow markaas siday sheegeen waxyaabaha iyaduna madow ku jira waxa weeye sida la noo sheegay waxa free zone la sameeyay laakiin free zone cida maamulaysa heshiiska kuma jirin free zone yaa maamulaya sida loo maamulaya utilities ko kale waxaan aan arkay heshiis ku jirtay ama meel ka akhriyay inay flagship-ka Jabal Ali inuu ku shaqeynayo free zone Jabal Ali ayaa kana yeelanaya ma garanaysaa isaas waa la sheegayaa markaas waxay isweydiinta leh magaranaysaa laydhka telefoonada internetka waxoo dhan inaga yeelanayna mise Dubai baa la keensanaya inkastoo magaranaysaa cable daciif oo Djibouti ka yimaado oo magaranaysaa bla internet aan fiican lahayn laakiin se wax wali heshiiskaas cid ka hadlaysa ama heshiiska wali lama soo bandhigin marka Somaliland free zone authority baa wada maamulaya iyo Jabal Ali ma garanayno laakiin se free zone-ku wuxuu leeyahay faa'iido far badan horta waxa weeye meel storage way alaabta la dhigto waa hangaradii waxa weeye meel warshaduhu yimaadaan waxa weeye meel hadana alaabta kale laga sii rari karo marka wax ka shaqeey wuxuu ka go'an yahay berbera waxa waa iska free zone marka cashuurna ma leh shaqaalaha adduunka oo dhan shaqaalaha imanayo ka shaqeynaya waxa laga yaabaa inay shirkado badani inay halkaas imaadaan oo dibadda ka yimaadaan waayo imika kale koski waxa wadamadaas Asia kale fogay imika production code wage-kiiba kor u kacay marka relocation bayta badan shirkaduhu ay jecel yihiin waxaan u jeedaa kharashkii baa batay xagga marka berbero kale way aad buu fiicnaanaysaa waayo masaafadiina way ugu dhowdahay xagga Mediterranean hadii alaabta Europe loo qaadayo wax laga yaabo shaqaale ka jabanna in la keeno laakiin si arintaas shaqo way abuuraysaa laakiin waxay ku xirantay si dadku shaqada u buuxiyaan iyo farsamada yaqaanaan iyo lafteeda iyo hadii service cida magaranaysaa internet kale telefoonka yaa siinaya waxaas u utilities-kaas u yaa siinaya in aanay magaranaysaa bureaucracy aan far badan aanay lahayn in shuruuc khafiif ah ay leedahay yani waxyaabahaas oo dhan ayaa dad looga marka ma garanayno Somaliland waxaas oo bixinaysa mise wax bixinaysa Dubai waayahay maadaama ay qorsooyihiinba inta badan heshiisyadii oo aan keenin ilaa imika baarlamaanka oo iyagoo rasmiya wixii la saxayna aan marnaba la soo bandhigin oo ay adag tahay sida loo ogaado heshiiska waxa ku qoran sida aad sheegaysay way Cabdiwahaab su'aasha
tallaabooyinka aad isleedahay way habboon yihiin in la qaado si looga faa'iidaysto fursadan timid waa maxay baad malanaysaa tallaabooyinka sida Soomaaliland qaadi kartaa imika waxaad sheegtay in Soomaaliland ay si jilicsan u gashay oo siyaasadahan caalamka isbedelay ama Dubai ku yimid culayska iyo kuwa Ethiopia ku yimid dhinaca military kaga yimid in Soomaaliland ka faa'iidaysan kar lahayd oo laga yaabo intaan imika ay qaateen saamiga ay ka basan kar lahaayeen oo shuruudaha adag ku xidhay laakiin Soomaaliland si jilicsan u gashay marka imika fursadaha banaanad sileeday wala sameyn karaa si arrintan fursadan looga faa'iidaysto maxay yihiin okay taan horta jawaabta ka jawaab waxaan doonaa ku yar qoorta saameynta ku leedahay say isku xirnaato saameynta ku leedahay mid siyaasiyo mid iyo mid siyaasiyo mid dhaqaalaba horta labadaba miisaan oo leedahay Soomaaliland labada faa'iido oo leedahay mid dhaqaalaha hadaan ku hormarno dekadu qaybtan containerku dad dekedeena imka wax ka shaqeeya gacanta laga shaqeeyo manual marka ta containerka wax la keenayaa iyadoo mechanized oo capital intensive way oo shaqaale badan involved ku noqon ma shaqaale badan kulli ma qaadanayso laakiin meesha shaqada badan ku jiraysa waxa weeye waa free zone oo dad badan ka shaqeynayaan waxa kale oo iyadana muhiima waxa yeelanaysaa dekedu forwarders logistics iyo qolada freight and forwarders kale clearance iyo waxa soo dhan iyo transportation ku waa halkaas shaqo badan ayaa ku jirta haddaanay Ethiopia kale haddii Ethiopia dhil la galo iyada lafteeda transportation idina muhiim inay Soomaaliland ay wax ku yeelato waa Ethiopia ka Djibouti waxa isticmaashaa waxay leedahay parastatal ama shirkad dawladdu leedahay oo 2,000 oo truck leh gawaadhi leh oo lagu talagalay ganacsiga xuduudda iskaga gudba oo containerada qaaday marka taa lafteeda waxyaabaha u baahanaan soo sheegi doono in ma garanaysaa laga wada hadlo ay Soomaaliland ka wada hadasho laakiin hadii uu soo gudbo saameynta dhaqaalaha kale taa dhow waxa weeye waa shaqaale abuur iyo shirkadihii oo ma garanaysaa shaqo ka hela midda labaad waa free zone ka muhiima free zone kaas wuxuu soo jiidanayaa maalgashiga adduunka soo jiidanayaa waayo waxa meesha timi in dekad casriya facilities wanaagsan leh marka warshadihii ayaa relocation ku soo sameeysanaya meesha markii warshadihii meesha yimaadaan iyo shirkadihii warehousiyadooda iyo bakhaarradooda ay ka dhigtaan meesha oo laga weesaco Africa shirkadihii local ka ahaana farsamadii bay ka baranayaan way degayaan free zone ka iyaguna halkaas ay ka baranayaan farsamada markuu free zone kaas muhiim u culays yeesho waxa imanaya financial industries waxa imanaya bangiyadii baa imanaya markuu bangiyadii imaadaan shirkadihii baa soo degaya iyaguna berbera ma hargeysa soo degaya free zone ka lahaa marka halkaas waxay ka keenaysaa mustaqbalka dheer 10 sano soo socda halkaas wax badan ka bedelaysa markaas waxa meesha culays bay yeelanaysaa marka dhaqaalaha shaqo abuurna way sameynaysaa culays siyaasadeedna way yeelanaysaa inta badan siyaasaddu waxa weeye hadii dan interest kaagu hadii wadan uu dantiisa ka dhaxarko aad baa fududayn in ma garanaysaa miisaan siyaasi ay yeelato oo imka Soomaaliland arinta awgeed waxay yeelanaysaa miisaan siyaasi oo horseedi kara اعتراف إلا اعترافه waayo interest adduunka horta siyaasaddu waa political اعترافku ma aha legal issue ma aha inta qaramada midowga la tago laga doodo la xaq walba ma aha waa political issue yani idanteeda ma ka dhaxaragtay dawladaha waaweyn ama dawladaha magaranaysa muhiim dantooda ma ka dhaxarkeen marka dantiina maanta ganacsi ayaa xigta marka taa awgeed berbera arinta timi awgeed Soomaaliland waxa soo jeedisa magac weyn Soomaaliland waxa soo jeedisa political significant ay noqonaysaa yeelanaysaa haddana soo noqdo su'aashii intaadan su'aasha gelin ana isu ka raacin doonaa halkaas su'aal ka weydiinaya Freesonka waxaanu sheegnay in Ethiopia saami ku leedahay imikana Dubayna ay saami ku leedahay Dubai waxay tiri waxaan ka sanna shaqaale oo laga yaabo in shaqaale keensadaan dekada uga shaqeeya intay doonaan ha noqdaan numberkood iyo tiradoodu marka sharciyan markaad eegto Ethiopia iyo Dubai حق موليه ما دام ماشي سامي كله يهين إنه وشغالوه ذا كان سدان إثيوبيا يو دبي حق موليه شرعيا مركز أكتر ما هنو على كلا سامي شركة ده أي كقادنا يعني كده هو كلا كقادنا يعني وده مكلا وده كانوا دالن هذه إثيوبيا ترى هذا شغال كان سنة إنه إن حق مولي لهرتها سو كلا وما سمين كلا المساء
soo aragtaa taas dhinac way ka noqon kartaa oo yeelan karaan sida lagu wada heshiiska waxan waa shirkad baa lagu wadayay waxanba Ethiopia 19 bay leedahay boqolkiiba Dubayna waxay leedahay 65 Somaliland wax adigu labadaas 70 bilyan Somaliland 30 bilyan marka waxa weeye waa inay wada maamulaan iyagu marka Ethiopia day stakeholder bay noqotay yes way noqonaysaa inay dadka shaqaalaha qaybteeda keenaan ama inta waxay ku mideysay inay ka wada hadleen ay keenaan way noqon kartaa taa xaq way u leedahay inkastoo in garanay badii heshiisku xidhigayo yaa talafteeda way su'aashan aan ku weydiiyay markii hore su'aasha kale naga soo dhax gashay talaabooyinka aad isleedahay way haboonayd in la qaado si looga faa'iideysto fursaddan iminka Soomaaliland u timid maxay yihiin Cabdiwahaab kullu doo fursadii marka laakiin sidee wali waxa weeye kolba sidii looga faa'iideystay wixii hore dhacday laakiin imka dawladdu waa inay samaysaa waxa free zone kaas aan soo sheegnay iyo waxa soo ma garanaysaa ay faa'iido soo baxayo kale waxa ku xirantay dawladdu talaabada qaato ay ku xirantay imka kale waa inay samaysaa trade and policy waa inay samaysaa sidii Soomaaliland si dad badan soo jiidan lahayd yani sida cashuuraheedu siday tahay iyo siday ma garanaysaa ay transitka u maamusho waa inay samaysataa siyaasadda ganacsiga mid labaad muhiimka waa in iyadana la sameeyaa siyaasadda waxbarashada waayo dadkeenu skill ma leh farsamo fara badan ma lihin saacadaha waxa laga dhigtaa wax iska gooniya laga dhigtaa laakiinse shaqada loo baahan yahay free zone-ka keen iman doonta taala iyo skillka wadanka yaala isma laha way kala duwan yihiin marka waa in dawladdu arrinkaas siyaasad degdeg ah qaadataa oo tertiary education-ka wax la yiraahdo yani waxbarashada sare waliba farsamada u badan inay samayso weeye oo imika dhaqso loo sameeyo oo maxadada la bilaabo si dad injineer la soo saaro wadanka shaqo abuur ka faa'iideysta meeshaas free zone-ka hadii kale cid kale gaab ka buuxinaysa waxa kale iyaduna muhiim ah inay dawladdu iyaduna ay xoog saarto shuruucdii ma garanaysaa ay soo jiidanayay maalgashiyaasha ma garanaysaa shirkadaha dhan inay ku shaqeynaysay waxa kale oo muhiim ah inay dawladdu lafteeda iyaduna ay aad ma garanaysaa ay uga fiirsato wixii haray qaybahan ma garanaysaa transportation ko kale gaadiidka oo kale Ethiopia in iyadana heshiis laga galo waayo sidaan ku soo sheegnay Ethiopia waxa weeye dhowr kun oo gaaribe leedahay oo dawladdu leedahay iyada kaafta shidaalka ka bixisa ninka qofka wada mushaarkiisa bixisa maintenance-keeda ku samaysa marka kaba soo qaado kale marka alaabta berber laga soo raraayo waxaan dekada isticmaalayna waa Ethiopian dawladdu ma laha badankoodu waa shacib marka qof shacib ah markuu alaab kale soo dago meesha uu raado tankii ma igu qaadaysaa $20 gaadiidkeenu kuma bixinayaan waayo ma garanaysaa qofkiisa gaarigiisa le shidaalkiisa wax isku qaba laakiin kana dawladda loo kabaysa marka wuxuu helayaa gaarida xabashiga u yaala oo u qaada marka taa lafteeda waa meelaha u baahan in arrinkaas iyada lafteeda laga howlgalo wadana heshiis ku jirin marka dib looga noqdo waxa kale oo iyaduna muhiim ah in dawladdu ay tababar siiso shipping lines oo kale inay tababar siiso qoladan la freight and forwarders oo kale iyada lafteeda qodobada iyaduna garanaysa su'aaluhu ka taageen waxa weeye 19% waxa qaadanaysa Ethiopian shipping line ee dekada qaadanaysa 90% oo Ethiopia fleet waxa leedahay maraakiib leedahay oo arrimahan u seebsatay oo dekadan ay ka mid tahay markaas waxa iyaduna muhiim ah oo imika dal ogaado oo dawladdu ka shaqeysay iyaduna qoladan clearance iyo forwardersku maxabashi bay noqonayaan Ethiopian shipping line-ka mayada soo wakiil noqonaysa mise dad muwaadiniina oo reer berberaba wakiil noqonaya kadib ceeshaya yani waxyaabahaas u baahan imika in negotiation laga fiirsado ay samayso markaas arintanu saan soo sheegnay Soomaaliland waxay u keenaysaa itiraaf badan bay u keenaysaa waxay u keenaysaa miisaan fara badan itiraafna oo keenaysaa xaga kale marka laga eegana Soomaaliland crossroads ka taagantay yani meel halis ah ay taaganto mid laba aflaa waayo in waxaan oo dhan oo dadaala oo imaaraadku wadan ama waxaan oo dhan isbedelay wadamo fara badan baa doonayay ku dhex fashiliyaan wadanka Soomaaliya iyo Soomaaliland markaas kuwaasna waxay yaqaanaan gol jilicda ay yaqaanaan Soomaaliland marka proxy war bay arintan xataa ay horseedi kartaa ama xantayn kartaa marka Soomaaliland waxay u jilicsan tahay qabyaalada halka laga gali karana waa qabyaalad marka taa lafteed waxay ku xirantay maamulkan ama leaderkan jooga sidii wadanka u badbaadiyo uu garto iyo ilbaxnimada iyo kartida uu keeno ku maamulo
yani isagu baa chance siin kara dadka laga yaabo inay barogsi warka noqon karto dadka doonaya inay markaa fashiliyaan waxaad uga jeedaa deep word bay doonayaan inay ku fashiliyaan in lagu fashiliyo Somaliland gudaheeda oo wadamo kale oo dibadda ah ayaa doonaya inay fashiliyaan absolutely ha imika waxa jira dagaalka khaliijka baa jira imika oo isna phenomenon cusub ah oo ma garanaysaa tartan buu marka horeba ka dhashay marka wadamadu tartan bay ku jiraan marka qof wadanadan ma ogolaan wadana uu regional power noqdo marka way jiraan wadamo ma garanaysaa aan raalli ka ahayn oo doonayna fashiliyaan laakiin fashilkaas wuxuu ku xidhay chance-ka sida uu siiso xukuumadda haysataa hadii qabyaalada waxba ka qaban weydo ay qabyaaladii lafteedu entertain garayso waayo meelaha goljilicda laga soo gali karo markaas ida lafteeda halkaas waxa yaala hawl badan baa taala waddanka Ethiopia wuxuu muddo dheer la lahaa xiriir ganacsi waddanka Djibouti oo laga yaabo siday u kala go'een Eritrea inuu kala soo degayay ganacsigiisa alaabtiisa shirkadda Dibwoodna way joogtay sanadadii ugu dambeeyay waddanka Djibouti Djibouti ma siinin Ethiopia iyadoo waxa soo dana ku qabtaa oo waxa soo alaaba kala soo degayaan oo 100 milyan ku xiran yihiin Djibouti ma siinin wax saamiya Ethiopia marka waa maxay sababta ay Somaliland u siisay Ethiopia saamigan iyadoo Somaliland xukuumadeeda ku doodayso way isticmaalayaan 100 milyan Djibouti way isticmaalayaan Djibouti saami may bixin oo may siin dekadu ma adeegsaneen marka waa maxay sababta keentay in ay Somaliland bixiso saamiga inta laga wadanka shisheeya u siiso horta Djibouti waa runtaa waxba kuma leh yani Djibouti waxa iyagu waxa bay Somaliland waxay natiiray Somaliland waxay yiraahdeen wadada ayaa bay keenaysaa Djibouti garanaysaa Ethiopia infrastructure baan jirin wadada la soo raacayo iyo sameynaysa ayaa lagu sababeeyay laakiin sita Djibouti Ethiopia 750 kilomitir oo rail road wadada xadiidka ma garanaysaa tareenka Ethiopia leedahay dhigtayada dhigtay lacag ba Chinese ka ama dawladda China u sameysay yani waxay iska daayay wadadeeda soo jiidatay marka haday waxay ka mid tahay waxyaabahan ka sheekeynayaan leenahay Somaliland culayskii may fahmin markii negotiation-ka yani Ethiopia ma garanaysaa inay u qaldantaa bay u haystaanba inay ma garanaysaa u qaldantay xagga gorgortanka u haystaanba iyo Imaaraadkuba marka iyaga laftooda malaa waxa ku raagay Somaliland isolated bay waqti u badan ahayd oo cid taagneed markaas cidii xaggeedu soo jeesatay oo isu dhiibtay daqiiqdiiba laakiin say wax kamid ah iyadaba lafteeda waxa keenay gorgortan xumaanta ka arinta waayahay Ethiopia ayo Djibouti sidaa sheegtay imka ahmiyad weyn bay u qabaan Somaliland anoo khaliga dawladda su'aasha ugu dambeysay arrintan ka weydiinay Djibouti saldhig military bay ka samaysanaysaa ama Imaaraad ka samaysanayaan meesha la yiraahdo Berbera waxayna keenayaan ciidamo saldhiga jooga oo laga yaabo inay yiraahdeen ay ku sameeyeen saamigooda iyo maalgelintan ay ku sameeyaan dekada Berbera ay u ilaaliyaan marka haddii Ethiopia tiraahdo anaguna ciidamo aan keensanayna saldhigaas oo waxay noo ilaalinayaan saamigan anagu aan ku leenahay 119 iyo xoolahayaga ilaalinayaan arrintaasi say noqonaysaa Somaliland ma ogolaanaysaa soo ma sii noqonayso in marka ciidamo Ethiopian waddanka la soo dejiyay horta waa run saldhigada heshiis baa jira isaga laftiisa heshiiska lama arag Imaaraadka de salba sababood buu yimi inuu dekada ka ilaashado iyo inuu ma garanaysaa dagaalka Yemen ka socda inuu ma garanaysaa uu kala socdo kala dagaalamo taas ahayd de waxaan laga kreeyay Imaaraadka laga kreeyay marka waa kreeynay Somaliland tiri cid kasta way keeni karaan suurtagal inay keenaan xaq buu leeyahay in Ethiopia keenaan ma inay Yahuud keenaan iyo Masaariya waxay doonaan way keeni karaan taas Ethiopia laftigeedan sheegaya way soo degi kartaa Imaaraadka ogolaado waxa oran kartaa 19-keega ilaashana haduu Imaaraadka ogolaado meesha Imaaraadka leh Somaliland ma leh Somaliland waxaan boqol waxaan kale nabadeedeen 30 sano kale nabadeed shaqo kuma leh cid kasta way keeni karaan waa suurtagal in xabasho timaado aad iyo aad bay suurtagal waxa ku xidhan tahay Imaaraadka ogolaadaan imika Imaaraadka siiyay dekada waayahay halista arrintaasi ay leedahay ayaan jecel inaan ku soo gabagabeeyo Cabdihabo Ethiopia wareysigaaga qaybtii ugu horeysay waxa ku jirtay in culays far badan iyo warwar uu ka haysto 100 milyan bilaa dekada ah iyagoo Djibouti isticmaalayo taasina aanay u fiicnaan xitaa security ahaan baad hadalka ku soo dartay marka ma laga yaabaa Ethiopia inay balan gareynayso mustaqbalka dambe in ama Somaliland ha noqoto ama Djibouti ha noqotee in wadamadan yar yar ee ku hareereysan ee badda weyn leh in mid kamida ay dhul ka boobto bada
ma laga yaabo in qorsheedu caynkaa yahay oo balaankeeda ay ku jirto in Ethiopia halistaasi hadhow ay timaado waa suurtagal waa dhici kartaa yani Ethiopia waxay leedahay aspiration bay leedahay in bad hesho ka go'antay say doontaa ku hesho laakiin waxay ku xirantay taaso inagu kulba sideenay haddii inagu game-ka aan fahmo inuu sidaan ku sii socono waa suurtagal inay ma garanaysaa wax kasta waa dhici kara laakiin taas kulli waqti bay qaadanaysaa laakiin Ethiopia kulli waa scenarios ka ay ma garanaysaa ay damacsan tahay talafteedu laakiin waana inagu fahanay Somaliland hatta lafteeda anu waxaan qabaa in imanka la doono basis kale oo la doono si miisaanka culayska Somaliland u bato oo imanka waxa dhici karto kale Mareykanka kale wax suurtagal inuu sayl cimaado waayo Mareykanku wuxuu frustration ka yahay Dubai wati ka baxday doorale marka China ayaa wax ka sameynayaan iyaduna dekad aad weyn oo mega porta marka Mareykanku waxay ka xanaaqsayeen facility-gooda space-ka Mareykanka ee military-ga dekadaas isticmaalayaan marka dekad China gacanta ku hayo halka aad bay u diiday marka waxa suurtagal ah dhici karta haddii san ku sii socoto inay sayl ama maadaama dekad ka sameystaan marka dawladda waxyaabaha u yaala waxa kamid ah momentum-ka inay ka shaqeyso way basis fara badan keento way Iran keento Turkey keento Mareykan keento yani markaas culays bay yeelanaysaa marka stake bay wadan kasta ku yeelanaya marka waxay yeelanaysaa miisaan ma garanaysaa ay dhan cusub ay u sameynaysaa marka haddii waxyaabahaas kale laga market galaya fiican oo siyaasadda arrimaha dibadda hayd ma garanaysaa ay sheekooyinkii repetition-ka ahaa calan baan leenahay 60 dawladaha jirto waxa la dhaafo in ma garanaysaa ay trajectory kale ma garanaysaa la saaro arrimaha dibadda oo ma garanaysaa ku saabsan sidii loo market garan lahaa istiraatiijiyadan iyo meeshan buqcadeena deganahay sidaan adduunka ugu soo jiidan lahayn ama mid military noqoto ama mid ganacsi ha noqotee taa lafteedu ma miisaan ku yeeli kartaa sida modelka Djibouti qaadato kale iyada lafteeda dawladdu waa inay hadii waxay u baahan tahay in looga shaqeeyo xirfadeeda la yimaado kartideeda la yimaado marka hadii taa la sameeyo Ethiopia marka albaab meel uma banaana riyadeedaas waa iska qaadaysa waayahay Cabdiwahab inagoo in badan imika wareysiga wadno iska soo gabagabeyn doona soo moodid in waxa soo arrimo wanaagsan aad ka sheekaysay iyo fursadaha Somaliland heshay laga yaabo xitaa ictiraaf inay u keento soo laba moodo inay hortaagan yihiin caqabad ah heshiiskan inaan laba garanayn wuxuu yahay oo dawladda Somalilandna ay diidan tahay inay baarlamaanka iyo heshiiskan oo qoran oo sidiisii loo seexaya inay hor keento baarlamaankii ay diidan tahay oo dawladdii hore siilaayna ay keen weyday kuwan imika joogaana ilaa imika aanay keenin markaasoo arrimahaasi uma muuqdaan in Somaliland wuxuu yahay madmadow iyo xaqalqalin inuu isaga badan yahay iyagu sidan imika u sharaxaysa ilaa heerka wanaagsana inay gaarsiisanayso lagama yaabo jawaab muuqataabada yani qariska maxaa keenay iyo khajilaadan iyo heshiiskan ay saxiix waa ama garanaysa dadka la toos waayay ay qancin waayeen yani waxa marka hore si weeyda loo galay ma garanaysa ama xaqalqalin ma garanaysa xirraadsadan ama ma garanaysa si kala haw fikraan laakiin se arintan waa arin ma garanaysa waxay noqotay arin ay Somaliland ma garanaysa qiimaheeda ay garan weyday oo ma garanaysa ay seegtay fursad seegtay way noqotay umaleyn maayo caqabad ku noqon doonto deed waaba la aqbalayba saasa la aqbalay laakiin waxaan leenahay sida ku socdo balintan hagaajiyun hadhay waayahay mudane Cabdiwahab Ismaaciil Sancawl oo ah aqoonyahan reer Somaliland oo isagu nooga warrama arrimaha dhaqaalaha oo ku sugan wadanka Sweden isla markaana master degree oo ah dhaqaalaha oo isagu aan maanta ku wareysanay wadanka Sweden ayaan barnaamijkii inta ku soo gabagabeynayna daawadayaal barnaamijka Cabdiwahab adigu aad iyo aad ba maasan tahay aniga iyo dadka ayaa isma salaameyn doona daawadayaasha qiimaha badan ee hawada nagala socdo intaas uu inagu dhamaaday wareysigeeni waxaan rajaynayaa inaad wax badan aad ka faa'iideysateen mudane Cabdiwahab Ismaaciil Sancawl oo isaga inta badan aan dhaqaalaha aan ka wareysano oo runtii si aad u cilmiyeysan oo faahfaahsan uga warrama arrimaha dekada iyo DP World iyo wax kasta oo ku saabsan dhaqaalaha Somaliland oo aan aad u dareynayno inaan dadka u soo bandhigno si ay u fahmaan ama xitaa marka qaarkood sicir bararka iyo dhibaatooyinka oo Cabdiwahab horena uga hadlay sidii looga bixi lahaa imikana uu hayo fikrado badan oo kale oo ku saabsan sidii dadka Somaliland ugu caawin lahaa si ay waxaan uga baxaan waraysigan waxaa idii soo qaadiyay halkan idin kala socodsiinaya anigoo ah Barkhad Cabdilaahi Maxamed oo ku sugan xarunta Home Cable TV ee wadanka Sweden inta aynu dib u kulmayno daawadayaal dhamaantiinba nabadgelyo